ururka wariyaasha qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SAGES waxa ay si weyn u cambaarayeen falkii Somaliland ay ku mamnuucday xafiiska TV-ga Hon Cable oo ku lahaa magaalada Hargeysa isla markaana ay xabsiga ugu taxaabtay qaar badan oo kamid ah wariyaasha ka howlgala Somaliland gudoomiyaha ururka suxufiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ee wadanka Kenya Maxamed Cusmaan Xuseen New York oo ay weheliyaan qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala wadanka Kenya waxa uu si gaar ah ugu codsaday Somaliland in ay xorriyadooda dib ugu soo celiyaan wariyaashii la xiray isla markaana ay dib u fasaxdo shaqadii TV-ga Hon Cable ee magaalada Hargeysa inagoo ah wariyaasha dibad jooga Soomaalida ah ee ku sugan wadanka Kenya gaar ahaan anoo ku hadlaya magaca guddiga dibad jooga ah ee wariyaasha Soomaalida ah waxaan ka codsanaynaa dawladda Somaliland aan ogahay inay tahay dawlad madaxweynaheeda hadda Axmed Siilaanyo mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ku yimid hanaan doorasho taas oo runtii u dhacday si dimuqraadi ah waxaan ka codsanaynaa in telefishinka caalamiga ee Hon Cable aan wararkiisa hayno in xaruntiisa la xiray ruqsadiina lagala laabtay in xorriyadoodana loo celiyo inay si madax bannaan sidii ay hore ugu shaqaysan jireen dalka haatanna uga shaqaystaan sidoo kale waxaan codsanaynaa wariyaasha la xiray iyagana in xorriyadooda dib loo soo celiyo sidoo kale Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu iyo Cabdiqafaar Shil oo kamid ah xubnaha ururka wariyaasha qurba joogta Soomaaliyeed ee wadanka Kenya ayaa iyaguna codkooda ku biiriyay sida uga xun yihiin in la xiro tiro wariyaal ah oo ka howlgala Somaliland waxayna ugu baaqeen dawladda Somaliland inay ilaaliso xuquuqda saxafiyiinta iyo xorriyatul qowlka waxaan runtii codsanaynaa isla markaana wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland iyo wasaaradda warfaafinta iyo waliba wasaaradda cadaaladda aan ka codsanaynaa in marka hore si shuruud la'aan ah loo soo daayo wariyaasha reer Somaliland runtii maanta la xiray waxaan kala codsanaynaa in si shuruud la'aan ah iyagana shaqadoodii ay loo ogolaado inay dib ugu noqdaan TV-ga caalamiga ee Hon Cable isla markaana xafiiskiisa ama stuudiyaashiisa Hargeysa laga dulqaado ciidamada iyo booliska lagu gadaamay si ay u wataan shaqadooda sababtoo waxaan ognahay maanta in TV-ga Hon Cable uu ku socday TV-ga koowaad qof allo iyo qofkii af Soomaali ku hadlahay oo runtii aad ula dhacsanaa shaqada uu wado taasna runtii waxay dhibaato u keenaysaa xorriyadda saxaafadda in TV noocaas oo kale ah la hagardaameeyo sidaan ognahay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida Somaliland ayuu TV-gaasi qayb ka ahaa waayo saxaafadda la'aanteed ba horumar noocaasa ma aysan gaari lahayn dawladda Somaliland iyo dhammaan shacabkeeda sidaan ognahay madaxweynaha xilliga haddana shaqeeyahay wuxuu ku yimid cod ay dadku ku soo doorteen waxyaabihii ballanqaadka campaign-ka markuu ku jirana waxaa ka mid ahaa inuu horumarinayo saxaafadda iyo warbaahinta dalka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in axdigii hore ee madaxweyne Siilaanyo uu galay inaan lagu xadgudbin waxaan rabnaa in dimuqraadiyadda iyo shaqadii ay ku wada shaqeyn jireen hay'adaha warbaahinta iyo hay'adaha kale dawladda inay sidii hore u sii socdaan waxaan aad uga xunnahay tacadiga ay Somaliland kula kacday saxafiyiinta ka howlgalayay dalka maaragtay saxafiyiintii ka howlgalayay Somaliland xaqiiqdii aad waxaan uga xunnahay oo aan cambaaraynayna xariga loo geystay agaasimihii guud ee telefishinka Maxamed Cabdi Elig iyo wariyaasha walaalaheena ee Xamse Cali Bulbul iyo Maxamed Sabri ay kamid yihiin iyo sidoo kale tifaftirihii shabakada caanka ah ee Hadwanaag News waxaan sidoo kale aad uga xunnahay dhammaan wariyaasha ee Somaliland ee ay maamulka Somaliland xireen ama xabsiga ay dhigeen kadibna xarigaasi ku mutaystay iyagoo baahinaya maaragtay wararkii maxalliga ahaa iyo waliba kuwii caalamiga waxaan ka warqabnaa in telefishinka Hon Cable TV uu kamid yahay telefishinada u adeega bulshada ku hadasha afka Soomaaliga waxaan ka warqabnaa in wararka gudaha iyo dibadda haqabtira ummadda ku hadasha afka Soomaaliga ay maaragtay laga daawan jiray telefishinka Hon Cable TV baaqan ka soo baxay ururka suxufiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ee wadanka Kenya ee SAGES ayaa waxa uu kamid yahay tiro baaqiya oo ay soo dirayaan ururada suxufiyiinta caalamiga ay kuwa Soomaalida ku wajahan falkii maamulka Somaliland uu ku xiray TV-ga Hon Cable ee magaalada Hargeysa iyo tiro wariyaal ah
إبراهيم كدو عوالة بيبو S24 TV نيروبي.